mudane maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa si kulal uga hadlay weerarkii bahalnimada ee kooxda shabaab ee argagixisada ay ku qaadeen xarun ciidamada darawiishta Puntland ay ku leeyihiin deegaanka lagu magacaabo af urur oo ka tirsan degmada Galgala ee gobolka Bariya Puntland. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa tacsi u diray qoysaskii iyo guud ahaan qarankii ay ka baxeen shacabkii iyo mujaahidiintii ku geeriyootay weerarkaasi argagixisada ah. Ayuu sheegay madaxweynaha dowladda Soomaaliya inay yihiin shuhado dhiigoodana u horay difaac dalkooda dadkooda iyo diintooda intuba. waxaan aad uga tiirayeysanahay geeridii ku timid shacabkeena iyo ciidankeena geesiyaasha oo ku baxay weerarkii tuulada af urur ee ka tirsan degmada Galgala. waxay u dagaalameen si geesinimo leh si ay u difaacaan dalkooda iyo dadkooda iyagoo cibaadeysanaya bisha Ramadaan, ayuu yiri madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo. madaxweyne farmaajo hadalkiisa sii wata ayaa yiri weerarkan waxa uu cadeen u yahay khatarta ay leeyihiin kooxda argagixisada cadowga ee shabaab oo aan la dagaalamayno kuwaas oo doonaya inay mar waliba dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed ee nabadda jecel. waxaan xoogas isugu geyn doonaa sidii loo ciribtiri lahaa kooxda argagixisada shabaab, ayuu intaas sii raaciyay hadalkiisa madaxweynaha dowladda Soomaaliya. war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada Villa Soomaaliya oo nuqul ka mid ah u helay telefishinka qaranka Soomaaliya ayaa lagu yiri waxaan ballan qaadaynaa in al-shabaab aan laga hari doonin falkan fooshuxun. waxa haatan haraadigooda ku daba jooga sidii loo ciribtiri lahaa ciidamada darawiishta Puntland. waxaan ku kalsoonahay in ciidanka Puntland ay soo afjari doonaan falalka burcadnimo ay wadaan kooxaha si caadiyeystay in maalin waliba ay leeyaan dadka shacabka ahi. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya taageero dhinac waliba ay la garab istaagi doonto dowlad goboleedka Puntland. hadalka madaxweynaha Soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo maalinta shalay maleeshiyaad ka tirsan kooxda shabaab ay deegaanka afurur ka tirsan gobolka Bari ay weerar ku qaadeen halkaasi oo ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. waxaana ciidamada Puntland ay wadaan howlgallo ballaaran oo ammaanka la xiriira.